madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay shir madaxeedka Midowga Yurub iyo dalalka Jaamacadda Carabta oo maanta ka furmay magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar. Shir madaxeedka Midowga Yurub iyo dalalka Jaamacadda Carabta oo markiisii horeysay taariikhda la qabanayo ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa sare u qaadista iskaashiga u dhaxeeya dalalka Carabta iyo kuwa Yurub iyo in laga howlgeliyo sidii xasiloonid buuxda looga suurtagelin lahaa dalalka Carbeed ee mudradu ka jirto. madaxweyne Farmaajo oo shirka khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay ayaa waxa uu kaga hadlay horumarka uu gaaray dalka Soomaaliya iyo sidii dalalka Yurub iyo kuwa Carabtuba ay gacan buuxda uga geysan lahaayeen horumarada kala duwan ee ka socda wadanka Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad ayaa shirka kadib saxaafadda la hadlay. shirkii koowaad ee ugu horeeyay dalalka Yurub iyo Carabta dhexmara waxa uu bilowday saaka si rasmi ah. waxaa isugu yimid 28 madaxda Yurub ah iyo 22 madaxda dalalka Carabta ah. Soomaaliya waxaa uga qayb galayay wafdi ballaaran oo hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. madaxweynuhu maanta wuxuu ka mid ahaa madaxdii ugu horeysay ee shirka ka hadlay. wuxuu ka jeediyey khudbad dheer oo aad loogu riyaaqay oo kaga hadlay xiriirka Carabta iyo Yurub ka dhaxeeya. wuxuu kaloo ka mahadnaqay taageerada Yurub iyo Carabtuba ay Soomaaliya u hayaan dib u dhiskeeda iyo la dagaalanka argagixisada. wuxuu tilmaamay madaxweynuhu horumarka ay Soomaaliya ka gaartay dhinacyo badan. madaxweynuhu daafaha shirka wuxuu la kulmay madax badan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Ciraaq, ra'iisul wasaaraha Sweden iyo ra'iisul wasaaraha Talyaaniga iyo madax kaleeto. wuxuu madaxweynuhu madaxdii uu la kulmay kala hadlay xiriirka Soomaaliya iyo dalalkaas sidii loo sii xoojin lahaa, isaga oo markasta uga mahadnaqaya dalalkaas taageerada ay Soomaaliya la garab taagan yihiin. madaxdii uu la kulmay iyaguna waxay soo dhoweeyeen horumarka Soomaaliya ka socda dawladda ay ku tallaabsanayso iyo isbeddelka Soomaaliya. waxay ammaaneen dadaalka dadka Soomaaliyeed ugu jiraan inay dawladnimadoodii soo ceshadaan, waxayna ballan qaadeen inay Soomaaliya garab taagan yihiin. madaxweynaha qaranka ayaa shirka ka hor waxa uu shirdocoodii la yeeshay madaxweynaha dalka Ciraaq Burhaan Saleh, ra'iisul wasaaraha dalka Sweden Mudane Stefan Löfven iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga. madaxweynaha ayaana waxa uu madaxdaasi kala hadlay sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka ay la wadaagaan Soomaaliya iyo sidii la iskaga kaashan lahaa sare u qaadista dhinacyada ganacsiga iyo amniga. Salmaan Ogo, magaalada Boosaaso.